kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hayaan oo aan bishiiba 2 goor idiin soo gudbinno. qaybta 24aad ee barnaamijkeenna hayaan waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa fursadaha dhinaca dalxiiska ah ee ka jira dalka Soomaaliya. kadib sanado badan oo colaad ah Soomaaliya ma ahan meel inta badan lagu xiriiriyo dalxiis, hase yeeshee marka dib loo raaco waxaa in la tilmaamo mudan in dalkeenu leeyahay dhul baaxad leh oo ku habboon dalxiiska sida goobaha taariikhiga ah, jasiiradaha, xeebaha iyo dhulka kale ee buuraleyda ah. dadka aqoonta u leh dalxiiska Soomaaliya waxay sheegaan in fursado badan oo dhinaca maalgelinta ah ay ka bannaan yihiin dhinaca dalxiiska Soomaaliya, hase yeeshee ay jiraan caqabado waaweyn oo la xiriira horumarinta dalxiiska Soomaaliya, gaar ahaanna dhinaca ammaanka. si kastaba ha ahaatee waxaa socda dadaal ay wado xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya kaasoo ay ku doonayso in ay dib ugu soo nooleyso dalxiiskii dalka Soomaaliya. waa hagaag dhegaystayaal. haddaba si aan wax badan uga ogaano dadaalka socda ee dhinaca fursadaha dalxiiska ah ayaan waxaan waraysi la yeelanay Miski Yuusuf Cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana ay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan xaaladda dalxiiska dalka Soomaaliya. dalxiiska Soomaaliya waxaan dhihi karnaa Soomaaliya inay tahay wadan ku habboon kuna fiican dalxiiska iyadoo leh waxyaalo natural dabiici oona mataqaanaa unique oo loo soo dalxiis tago. marka hore waxaa u maleynaysay inay dhinaca security-ga cabsi iyo waxyaalahaas laga muujinayay, laakiin maalmaha dambe waxaa aad u soo badanayay inay hataa dalxiisayaal ajnabi ay imaadaan wadankii ayna arkaan mataqaanaa waxyaalaha uu wadankeena uu siini karo dalxiiska dhankiisa ku saabsan. marka waxaan isdhihi karnaa inuu hadda soo hagaagayo arrimaha dalxiiska, dhalinyarta iyada naftarkeeda oo si fiican ugu baraarugayso inay ku dalxiisaan wadankooda, meelaha kala duwan ay aadaan. Jubbaland markaan u imaano waxaan dhihi karnaa waxay leedahay meelo ku habboon dalxiiska. waxaa ka mid ah meelahaasayto haddaan hal iyo laba kasoo qaadano oo caanka ay ku tahay goob weyn oo ay halka iskaga darsamaan webiga iyo badda oo ah meel unique ah Soomaaliya oo dhanna halkaasayto un ay ku taalo. waxaa kaloo Jubbaland ilaah ku maneystay naftarkeeda meesha labada webi ee webiga Ganaane iyo Jubba iyada naftarkeeda ay iskaga darsamaan oo ku daala doolow. waxaa kaloo leedahay jasiirado yaryar oo ku habboon iyadana dalxiiska oo taariikh leh qaarkooda. waxaa ka mid ah Koyama oo ahaan jirtay meelaha taariikhda waxaa kaloo ka mid Juli Jalwa way badan yihiin ilaa 9 baa lagu tiriyaa. Bajuni Islands baa lahaa. marka jasiiradahaas dhammaantooda waxaa la dhihi jiray waa meelo aad u qurux badan loo soo dalxiis tago, aa ka helaysid wax kasta hadday noqoto camping aa ku samayn kartid. taariikh ahaan aad mataqaanaa ay leeyihiin taariikh dhaadheer oo qaarkooda hataa mataqaanaa waagii ay soo wada mareen Saciid Barqash waqtigiisii historical waxaa la dhihi jiray sites ay tahay. waxay kale leedahay haddaan Jubbaland imaano weli badda caadiga oo magaalooyinka dhexdeeda sida Kismaayo iyo coastal areas dhammaantooda iyada waa marka jasiiradaha laga soo tago ku yaalaan dhexda. waxaa kale leedahay beero fara badan oo iyadana loo dalxiis tago maalmaha fasaxa Jimcaha iyo Khamiista inta dadka picnic ahaan intay u qaataan cuntadooda waxyaalahaas ay kusoo samaystaan. waxaa kale leeyihiin meelaha aan dhihi karno caanaha laga cabaa. Jubbaland waxay kamid tahay meelaha zaa'idka xoola dhaqashada iyo ku fiican marka caanaha geelka especially meelaha loo dalxiista ay kamid tahay oo lasoo arko. waxaa jirto waxaan dhihi karnaa buuraha Tuga dheer ee ku yaalo magaalada Garbaharre iyada naftarkeeda waxay kamid tahay meelaha dalxiiska loo tago iyo kuwo kale oo fara badan oo hadda soo koobi karin. waxay kamid yihiin meelaha ay caanka ku tahay Jubbaland. waxaan is dhihi karnaa in intaas dhammaantoodaba ay hadda yihiin meelaha ugu badan oo access ay leedahay. waxaa kaloo ka tagay Jubbaland waxay caan ku tahay Lagbade mise largest national park in Somalia, inkastoo hadda taas ay gacanteena ku jirin laakiin meelahan ku faanay kamid tahay. insha Allah markii la xoreeyana rajaynayno inaan wax badan uga bedeli doono dalxiiska Soomaaliya dhammaanteedaba.
historical ahaan Jubbaland waxay ahaan jirtay meelaha wildlife-ka zaa'idka ugu badan yahay loo dalxiis tago. Haddana weli dalxiiskaasiyta uu ka jiraa, xayawaanada qaar weli waa laga helaa sida geriga, xayawaano badan oo iyadan waxaa jirtaa naftirkeeda la arki karo oona loo dalxiis tago. Taasoo kusoo koobaa. horta maxay tahay sababta uu dalxiisku muhiim u yahay? Dalxiiska wuxuu muhiim u yahay dhowr qodobood. Waa waxa hadda adduunkan dhan mataqaanaa aan kala mid nahay. Dalxiiska waxyaalaha iska soo jiita waaye. Wuxuu muhiim u yahay, wuxuu ka qayb qaadanayaa bulshada kobaceeda dhinaca dhaqaalaha markay imaato. Waxaa kaloo iyada naftirkeeda uu ka qayb qaadanaya isku socodka bulshadii inay mataqaanaa ay tahay mid furan open adduunka dhanna ay la jaan qaadi karto. Waxaa kaloo dalxiiska uu muhiim u yahay isdhexgalka bulshada oo inta badan ka qayb qaadanayo dhinaca markii loo eego hataa nabadda. Marka bulshada damo isdhexgalaan waxaa waaye damo mataqaanaa ay noqonayaan friendly mise asxaab ay noqonayaan. Waxaa kaloo iyadana dalxiiska uu muhiim u yahay in lasoo bandhigo mise aa aragtid dhaqamo kale oo aadan qabin mataqaanaa meelaha qaar. Hadda ka Jubbaland ahaan markaa imaatid waxaa arkaysaa gosha markaa aadid iyo Kismaayo markaa joogtid waxaa waaye dhaqamadooda way kala duwan yihiin. Marka inaad socotid waxay ku baraysaa dhaqamada kale oo bulshooyinka inagoo hal wada haddana aad dhaqamo kale oo badan aa kala leedihiin inaad soo aragtid oo la falgalkaasiyta iyadana kuu fududaynaysaa. Dalxiiska waxaa kaloo ka qayb qaataa nabadda naftirkeeda. Saan hore u sheegaba iyadoo isdhexgalkaasiyta uu nabad abuurayo, iyadoo mataqaana dadkaas imaanayo naftirkeeda xasilooni iyo waxyaalaha uu abuurayo. Waxaa kaloo ka qayb qaadanaya in naftirkeeda khibrado la iskala bedeshto. Dadka qaar oo badanaa dalxiiska xiiseeyo waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan ay soo arkeen ay bulshadaniitana mataqaanaa u keenaan oo laga faa'iido. Inahaas kusoo koobi lahaa waxyaalaha at least muhiimka u ah dalxiiska. maxay yihiin siyaasadaha iyo shuruucda aad isleedahay Soomaaliya way u baahan tahay inay hormariso si dalxiisku uu u guuleysto? Dalxiiskaas waxaan is dhihi karnaa way jiraan shuruucyo. Shuruucda waxaa ka mid sharciga maalgashiga caalamiga if I'm not wrong saas uu dhigan yahay umaleya. Taasoo mataqaanaa ka qayb qaadanayo in dhinaca dalxiiska la maalgashto investmentkana mataqaanaa dhinaciisaasayto loo fududeeyo aaladihii dadka usoo dalxiistay lahaayeen servicesyadii ay heli lahaayeen. Markay imaato iyada naftirkeeda shuruucda aviationka way soo gelaysaa because dadkii waxay rabaan mataqaanaa flight safe inay ku travel gareeyaan. I think waxyaalo badan oo kale ku xiran yahay dalxiiska. Marka imaatay dhinacan hospitality-ga iyo waxyaalahan oo cuntooyinka iyo waxyaalaha la fiirinayo standardkooda iyada naftirkeeda iyo shuruucyadaas way soo hoosgelaysaa because dadka waxay rabaan waxaa waaye wax safe waxba kasoo gaaraynin standardkoodana uu saxan yahay. Marka shuruucyo badan oo jirto. xiise intee laag ayay u qabaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna marka aad eegto dhalinyarada helitaanka dalxiiska? Wallaahi maalmahan dambe waxaa jirtay inay dhalinyarta zaa'id u xiiseynayaan. Mar waxaa jirtay 2021kii 22kii meelahaasay ahayd in hataa ay bilaabeen inay safarada ay galaan dhalinyarta reer Muqdisho ay tagaan Garoowe, reer Garoowe ay imaadaan Muqdisho isdhexgalkaasiyta ay bilaabeen way jirtay oo hataa dhowr meel ay ku tageen hataa Kismaayo naftirkeeda ay ku imaadeen. Marka dhalinyarta hadda waxaan is dhihi karnaa inay interest u hayaan dalxiiska, inay xiiseynayaan, inay jecel yihiin. Ayna tahay meelo badan oo mataqaanaa unique-na ay Soomaaliya leedahay lasoo bandhigi karo oo adduunka naftirkiisa ay kula tartami karaan. Marka rabitaankooda waxaan dhihi karaa aad waaye una sareeya. Kaliya waxaa laga yaabaa inay dhalinyarta mataqaanaa ay ciisho facilitationkaasiyto wadankan ka tag xagga ku tag. Dhalinyarta maadaama ognahay wadankeena dhalinyaro u badan yahay, dhalinyarta badanaana ma shaqeeyaan. Marka inay intaas ay facilitationka ku tagayaan ma ogeey laakiin aad bay u xiiseeyaan wayna imaadaan wadamo xilli jiray gobolada dhammaantooda way u safar tagaan. waxaad nooga warantaa marka qodobada fududeyn kara dalxiiska dalka gaar ahaana dhinacyada kaabayaasha? Waxyaalaha is leenahay in loo fududeeyo dalxiiska waxaa ka mid
flightska oo naftirkooda qaali in haddii oo ay jiraan waxyaala hoos loogu dhigi karo lagu dhigo. meelaha qaar destinationka oo la rabo in la booqdo kaysaa inay ay tahdaa wadooyinkooda wada raaf mase mataqaana aan dhisnayn, taasoo iyada naftirkeeda mararka qaar caqabada noqoto. markaa imaatid dhinaca badda ma jiraan Soomaaliya guud ahaanteedaba doomo dalxiis ku habboon oo dadkii mataqaana intay qaataan hataa ay ku tegi karaan jasiiradahan yaryar. waxa la isticmaalo badanaa waxaa u badan laashaskan yaryar oo mataqaana kalluumaysatada ay isticmaalaan, kuwaas baa lagu safraa. kuwaasna badanaa ma ahan kuwa u diyaarsan dalxiiska. marka iyada naftirkeeda in laga fikiro doomanka dalxiiska ku habboon in la keeno. markay imaato iyada naftirkeeda dhinaca amniga muhiim waaye. meelaan amni jirin mataqaana looma dalxiisi karo. marka in amniga boqolkiiba boqol laga fikiro meelaha la rabo in la dalxiis geeyo mase mataqaana promotion loo sameeyo dadka ay imaadaana in marka hore laga sii fikiro amni ahaantooda inaysan dalxiisayaashaasi wax kusoo noqonaynin. haddaan dhahno dhinaca maxaa la dhihi jiray dhaqanka iyada naftirkeeda inay bulshadii open noqoto, dadka ay soo dhaweeyaan una sheegaan waxyaalaha dhaqanka ku leenahay. waxyaalaha itemska oo iyada naftirkeeda dhaqanka waxaa u maleysaa inaysan jirin meelo gooni mase suuqyo gooni oo soo bandhigayaan masalooyin maanta intaad tagto aad dhihi karto suuqa waxaan tegayaa dhaqanka Soomaalida. iyada naftirkeeda waxyaalahaas in iyadana lagu soo kordhiyo oo laga heli karo, laga hirgelin karo magaalooyinka. cuntooyinka dhaqanka loo leeyahay, dharka dhaqanka loo leeyahay, waxyaalaha wax soo saarka dhaqanka loo leeyahay, dhammaan in iyada naftirkeeda wax diyaarsan oo dadkii mataqaanaa lagu soo jiidan karo ay noqoto. maxay kula tahay inay la eg tahay fursadda Soomaaliya ay ku soo jiidan karto dalxiisayaal ka yimaada dalka dibaddiisa? fursaddaas way jirtaa. dhowr jeer waa jireen dad oo ajnabi oo noo imaaday oo mataqaana ay rabeen inay arkaan Jubbaland waxyaalaha caanka ku tahay. waxaan is dhihi karnaa inay dadka ajaanibta naftirkooda ay interest u leeyihiin, laakiin waxaa jirtaa perception oo nalaga gudbiyo oo ah inay Soomaaliya safe ahayn, cabsi ka jirto. marka waxyaalahaas ayaa badanaa ka cabsi geliyo dadka ajaanibta inay imaadaan. fursadda waxaa la sameyn karaa waxay tahay in hadda bal dadka localka naftirkooda ay bilaabaan inay promotion u sameeyaan dalxiisaha, goobaha dalxiiska ay soo bandhigaan, dadka tusaan, ay la wadaagaan social media meelaha oo dhan ay geliyaan. dadka ajaanibta naftirkooda markay imaadaan anaga waxyaalaha aan sameyno waxay tahay inaan soo dhaweyno, waxba kuma charge gareyno dadkaasito meelaha la geynayo facilitationka uga baxaya moogiye. marka inaa dadkaasito aan dhahno experiencekooda inay ka hadlaan, the positive experience naftirkeeda dadka waxay soo jiidanaysaa kale oo perception qaldan ka haystay magaalooyinka. dad badan oo intay noo imaadeen feedback bixiyeen oo dadna dad nagu soo xireen iyada naftirkeeda ma aragnay. marka tacaamulka dadka ajaanibta markay noo imaadaan si fiican loola tacaamulo, lagu soo dhaweeyo, goobahana la geeyo, iyadana waa muhiim. marka waa fursad fiican waana danaynayaan. keliya waxaa jirta perceptionkaasito Soomaaliya oo laga gudbinayo oo inay tahdo meelo cabsi ah. taasna waxaan dhihi karaa waxaa loogu gudbi karaa inay dadka localka ay horumariyaan, u diyaariyaan iyada naftirkeeda dadka dalxiisayaasha ajaanibta waxay raadiyaan waxaa waaye experience oo waxay raadiyaan. marka inay waxyaalihii ay isleeyihiin halkaasito waa ka heli kartaan dhammaan in loosoo diyaariyo servicesyada dhan, cuntooyinkii, accommodationkii, facilitationka haday noqoto transportkii, waxyaalahaasoo dhammaan inay dadkaasito ay heli karaan, ay hadhow ku noqonayn caqabado. mararka qaar waxaa jirto dadka markay imaadaan ajaanibta in ayaga naftirkooda laga sii waalo lacago extra charges lagu sii qabto oo la dhaho waxaa u baahan tahay gaali buruf waxaa u baahan tahay waxaa la jiray dad ku ilaaliyo. marka taas waxay sii noqonaysaa dadka inay lacagti ku badato, expensive kusii noqoto, ayna ka discourage gareyso mase mataqaanaa kasii waaciso inay soo dalxiisaan Soomaaliya usoo dalxiisaan.
marka inay iyada naftarkeeda dowladda markay dad dalxiisayaal ajnabi imaanayso inay u fududeyn karto waxyaalaha qaar aysan dadka si ay ugu soo jiidato waa muhiim. ugu dambeyn marka maxay tahay fariinta aad la wadaagi lahayd dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha intaba? waxaan dhihi lahaa wadankeena waa wadan qurux badan isku darsaday waxyaalo badan oon unique u lanahay qurux badan aan leenahay the largest coastline aan leenahay Maldives iyo waxaan u maleeyaa in annaga ka fiicannahay keliya amni xumadaas baana hayso iyo inaan mataqaanaa iyada naftarkeeda si fiican aan usoo bandhigin. Marka dhalinyarta waxaa kula dardaarmi lahaa waxa yaraad haysataan soo bandhiga quruxda Soomaaliya soo bandhiga meelaha aad tegaysaan at least waxyaala fiidiyoyo quruxsan inta kasoo duubtaan la wadaaga dalka adduunka wuxuu isku bedelay waa digital dadkana waxaa waaye indhagaraadayaal waxay arkaan ayaa laga falceliyaa inta badan waxaa arkaysaa qof intuu meel aado oo weligeeda la aadin hal video yar intuu kasoo duubo inay dadkii dhan ay ku wada yaacaan ay wada tagaan marka annagana waxaa u baahannahay sidaas camal inaan dadka uga gadno wadankeena dhalinyarta ayagaa bedeli karaan social mediahana ayagaa ugu badan oo haysto marka waxaa kula dardaarmayaa inay soo bandhigaan quruxda wadankooda adduunka la wadaagaan si ay usoo jiitaan dalxiisayaasha gudaha iyo kuwa banaanka. aad bay u mahadsan tahay. taasina dhegeystayaal waxay ahayd miski yuusuf cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka jubbaland. welina dhegaystayaal waxaad la socotaan qaybtii 24aad ee barnaamijkeena hayaan oo aan toddobaadkan uga hadlayno fursadaha dhinaca dalxiiska ah ee ka jira dalka Soomaaliya. markana dhegeystayaal aanu gudubno waraysi aanu la yeelanay injineer mursal maxamed cabdi oo ah gudoomiyaha midowda wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska ee dalka Soomaaliya waxaana ugu horreyn ka jawaabayaa faa'iidada dalxiisku u leeyahay dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. dalxiisku faa'iido badan ayuu u leeyahay Soomaaliya waa marka koowaad oo Soomaaliya waxay leedahay wax walba oo dalxiiskii loogu talagalay oo si ilaahay u abuuray ah oo aan wax gacanta binaadamka uu gacan ku sameeyay ahayn macmal ahayn sida badihii buurihii webiyadii dhulbeereedyadii cimiladii carrooyinkii kala duwanaa ayay Soomaaliya leedahay marka faa'iido u leedahay koobaad waxa waaye si adduunka sida hadda ula jaan qaaday dalxiiska oo kale ay anagana nagu leedahay waa kobac dhaqaale oo aad u badan maadaama waddankeenu yahay 90% iyo wax ka badan dal leh waxa la wixii looga baahnaa dalxiiska dadka Soomaaliyeedna ay yihiin dad dhaqan ahaan ah dad martisoorka ku fiican oo qofka Soomaaliga ah oo anaga dhaqan ahaan markii hore dad rimiya dadku badankiisa ahaa waxa waaye markuu qofku rabo inuu safro wuxuu qaadan jiray ma jirin ciddu u tago ayuu ku sii martin jiray dadka Soomaaliyeed waa dad soo dhaweynta iyo martisoorka ku fiican kow dhulkii dalxiiska loogu talagalay iyo agabkii dhammaystirna way leeyihiin de waa dareemi kartaa hal qof oo dalxiisaha hadduu dalka soo galo waxa waaye waxa u shaqayn doonta dhowr iyo 10 qof 20 shirkado kala duwan ayaa u shaqayn doona taxi hotel transportation kale allaahul musta'aan shopping maqaaxi uu tago meel uu soo maaragtay booqdo intaasoo qof u shaqayn doonta intaasoo qof walba uu ka qaadan doono wax kastoo qofkaas uu watay waxaa loogu dhex reebi doonaa waddanka gudihiisa haddii loo helo amnigii iyo maaragtay goobihii dalxiiska. mursal muxuu yahay doorkiina ku aadan dalxiiska maadaama aad tihiin wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska? anaga howlaheena waa tiro badan yihiin bahdan travel agencies-ka oo wakiilada duulimaadka ah oo dhowr iyo 30 sanaba waxaan usoo adeegaynaa bulshada Soomaaliyeed dhinac walba waa ogtahay hadda waxa kaliya oo lagu safraa waa diyaaradihii aan rarnaayo tigidhadooda jarnaa ma kireynaayo ayagoo charter ah ama marka waxaan ku fududeyn karnaa haddii nabadgelyo la helo sidaas la mid ah inaan transportation-kii dhulka ahaana dadka aan siino waxaan u fududeyn karnaa sidoo kaleeto goobihii laftirkoodii maadaama anaga aan ganacsatanahay inaan maal gashanno oo goobo tiro badan oo hadda aan la tegin oo maalgashi u baahan oo ku dhiirasho u baahan inaan sameyno sida hadda aan ugu dhiiranay in diyaaradaha dalka la keeno oo la raro oo dadkii meel walba gobol iyo degmo iyo tuulo ay tagaan adduunkana dadka aan ku xirno sidaas la mid ah ayaa lagu dhiiranaya ayagana in goobihii dalxiiska la nooleeyo oo la maalgeliyo marka dadkii talo laga siiyo waxyaalaha u baahan yihiin oo kaleete sida maaragtay soo dhaweyntii dadkii qaabka loo soo dhaweyn lahaa dadka hagi lahaa dalxiisayaasha laftirkooda
goobihii dalxiiska laftirkooda in la cayimo la yiraahdo meeshaas iyo meeshaas iyo meeshaas wax badan aan ka qaban karnaa. waxaad sheegtay in Soomaaliya ay leedahay goobo badan oo ku habboon dalxiiska, marka maxaad nooga sheegi kartaa goobahaas aad sheegtay inay ku wanaagsan yihiin dalxiiska? horta si guud Soomaaliya oo dhan waa ku habboon tahay dalxiiska oo waxa u saamaxaya cimilada si qaas ah meel kasta oo xeeb leh laga soo bilaabo Kismaayo, Baraawe, Marko, Muqdisho, Hadale, Warshiiq ilaa Hobyo, Boosaaso, Eyl ilaa intaas soo soconaysa Berbera, meel kasta oo dhul Soomaaliyeed ah oo xeeb leh oo cimilada iyo waxa u saamixi doona iyo xeebta. sidoo kale shabeellooyinka iyo gobolka Banaadir iyo eerooyinkoodaas iyo ilaa Jubbooyinka ayaa waxaa jira dhul beereedyadana sidoo kaleeto way ku habboon yihiin laga soo bilaabo shabeellada dhexe, gobolka Banaadir, shabeellada hoose ilaa Jubbooyinka, kor Gedo, dhinacaas oo dhan meel dhinac walba oo leh ama webi maro ama kanaal maro ama dhul beereed oo carro madow sidoo kaleeto way ku habboon tahay dalxiiska. dhul barkaa jira meesha badda iyo webiga isaga darmaan weyn jirta, marka 90% ama cimilaha ku soo dhaweyso ama dhul green oo la beeran kara ku soo dhaweyso ama xeebaha ku soo dhaweyso waa Soomaaliya waxay u suurtagelinaysaa in lagu dalxiiso. dalxiisku dabcan wuxuu isugu jiraa mid gudaha ah iyo mid dibadda ah, marka ma kula tahay in Soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay labadaas dhinacba ka faa'iideysato? marka koowaad waxaa loo baahan yahay dowlad ahaan waa siyaasadii waxaa loo baahan yahay oo dalxiiska iyo shuruucdii iyo maaragtay maalgashi haddii la helo iyo haddii qofku Soomaali yahay hadduu ajnabi yahay dadkii wixii lagu kala hagi lahaa dowlad ahaan looga baahan yahay. marka labaad dowladda waxaa looga baahan yahay astaynta goobihii dalxiiska oo wasaaraddan waxaa jirta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wax dhan oo dalxiiska jirta, marka ayaga laga rabaa goobihii inay asteeyaan oo yiraahdaan magaalada Muqdisho waxaa loo dalxiisi karaa sida Jaziiro kale, waxaa loo dalxiisi karaa Daar es Salaam, waxaa loo dalxiisi karaa Dayniile, Kaxda. ayaga laga rabaa horta marka hore inay goobihiis saas oo kale u asteeyaan min gobol iyo degmo iyo tuulo. ganacsatada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa maalgelintii iyo ku dhiiranaantii iyo maaragtay in maaragtay sidii adduunka loo tusi lahaa soo bandhigidii in loo soo bandhiga adduunka quruxda Soomaaliya leedahay wax walba oo qurux ah oo dabiici ah oo sidii Ilaahay u abuuray ah. intaas haddii la isla helo waxaan isleenahay waa wax badan ay suurtagelinaysaa. ugu dambeyn Mursal, maxay tahay fariinta aad la wadaagi lahayd dhalinyarada iyo dhageystayaasha intaba marka laga hadlayo dalxiiska dalka Soomaaliya? fariintaydu marka koowaad waxaan u dirayaa bahda warbaahinta dhinac walba ama radio ama television ama dhinac walba dadka wax qoraa waxaan leenahay horta marka koowaad aan ku dadaalno sidaan u soo bandhigi lahayn quruxda dalkeena oo aan wax uga sheegi lahayn wax uga qoran lahayn wax uga baahin lahayn. taas waa midda meediyaha. midda labaad dhalinyarada jiilka hadda soo socda waxaan ku baraarujinaynaa adduunka dadka waxaa madax maray in lasoo sawiro meel qurux badan oo ama webi ah ama bad ah ama dhismo dad islaameed leeyihiin oo wadamo kale ah oo dadkii u hoyi kacaan oo laga yaabo in qofkii madaxiisa wax kala soo galaan. marka koowaad dalkeena qurux badan oo aad u qurux badan oo sidii Ilaahay u abuuray sidii Ilaahay ugu talagalay ah. marka labaad aan soo bandhigano, marka saddexaad aan ku qanacno ka shaqeysano shaqo ka abuurano inaan ku dalxiisi karno oo goobo badan leenahay, buuro leenahay, badan leenahay, webiyo leenahay, quruxda adduunka ay ka raadinayaan horta waddankeena taala. waxa u furan jaaniska ay uga shaqeysan lahaayeen, waxa u furan jaaniska ay adduunka ugu bandhigi lahaayeen, waxa u furan jaaniskii ayagoo waddankooda jooga ay uga dhex faa'iideysan lahaayeen ayagoo dalxiisaya kana shaqeysanaya bulshadana usoo bandhigaya inay isku dari lahaayeen. bahda waxbarashadana waxaan ku talin lahaa maadaama hadda la rabo in hore loo socdo oo la maal gashto oo wax badan laga qabto, waxaan ku dari lahaa jaamacadaha kale inay kusoo daraan qaybihii maaragtay dalxiiskii iyo taariikhihii dalka iyo tababarada sida diblomooyinka dadka tababarada sida dadka soo dhaweynta dadka dhexgelida dadka maaragtay ka dhex shaqeynta dhinacaas maaragtay bulsho furfuran oo ka dhex shaqeysa maaragtay howlaha dalxiiska. aad buu u mahadsan yahay. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa injineer Mursal Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha midowga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliya, waxaana wareysigiisa ugu dambeeyay qaybtii 24aad ee barnaamijkeena hayaan oo aan toddobaadkan uga hadlaynay
fursadaha dalxiiska ee dalka Soomaaliya. Tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.